أنا تلاعين جافنا ما كده هو تنتظر ما كده يا كلام تفضل والله طيب رجع امتى؟ فاكين كافر حتى الله يا صدمات تقولوا لنا مركي ورنا مسوا هذه لو حوهاتني انا ما دعينا الرسمان دقتين شت والله يوتيوب كمان يعني الله انت وصل كده على ما يوتيوب كمان يوم والله صور وريت هذا والله عظيم والله وطني حرارة حن بدك تبغى الآن magaalada Hargeysa ee caasimada waa Somaliland ilaa iyo magaalada Togwajale ee kala badha ama xuduudda u ah dalka Itoobiya iyo Somaliland ayaa maanta si weyn looga dareemaya xaalad ka cusub guud ahaanba jawiga bulshada ku dhaqan magaalooyinkaasi jawigan ayaa ah 29ka Daari oo ah bisha ay dalkaasi Itoobiya ay u dabaaldegaan maalinta ay ku xusaan qoomiyadaha ku nool dalka Itoobiya xaaladdan ayaa sababtay inaan guud ahaanba loogu arag Somaliland iyo guud ahaanba shacabka ku dhaqan iyada oo la saaray madnuuc tan iyo intay munaasabadu dhamaanayso soo gelitaanka qaadka oo guud ahaantiiba ka soo go'i jiray gudaha wadanka Itoobiya dadka reer Somaliland ee lagu tilmaamay inay yihiin muqayyiliinta ayagu sida weyn ugu xidhan xarumaha qaadka ee kala duwan ee magacyada iyo numberska kala duwan ku abtirsada magaalada Hargeysa ayaa dul tuman guud ahaanba goobaha loo yaqaan koloyada iyo xarumaha qaadka lagu gado iyadoo oo halkaasina aanu soo galin gabi ahaanba qaadka noocyadiisa kala duwan inkasta oo saacadihii dambe ee labadii duhurnimo uu soo galay mid kamid ah qaadadka iyagoo ku jira tartanka iyo suuqa cusub ee loo yaqaan Faraska kaasi oo keenay qaadkii ugu tala galay inuu ka iibiyo shacabka qiimaha sixirka qaadka lagu iibin jiray hore u ahaa 35,000 oo shilin ayaa gaaray 70,000 oo shilin kaasi oo noqonaya inuu si weyn uga faa'iideysanayo xaaladdan cakiran ee qaad la'aanta ay soo food saartay muqayyiliinta reer Somaliland ee iyagu taagan bartamaha suuqyada magaalada Hargeysa qaarkood waxay ku jiraan xarumihii saldhigga oo ahaa ay ku qayili jireen iyagoo halkaasi ugu gabanaya ama ugu dhuumanaya inay ku sugaan dhawaaqa hoonka gaadiidka soo qaada qaadka oo iyaga la filayo in guud ahaanba saacadu markay soo gaadho 6 maqribnimo uu soo gaadho xarumahaasi yaayulka dadka muqayyiliinta ayaa dareen kala duwan ka bixinaya iyadoo ay ku qamaameen goobo fara ku tirisa oo lagu iibiyo cuntooyinka qaaliga ah ee ka mid tahay galeyda ama xasiida oo si kooban loogu iibsanayo qadar lacageed oo dhan 2,000 oo shilin والله طيب رجع امتى؟ فاكين كافر حتى الله يا صدمات تقولوا لنا مركي ورنا مسوا هذه لو حوهاتني انا ما دعينا الرسمان دقتين ماشي وقال وحو كنت ذلك sida uu qaad magaalada u keenay la isaga oo xalay toole ka furlad
والله يوتيوب كمان يعني الله أنت وصل كده عليه بس يوتيوب كمان يوم من الجيراني وريت والله صور وريت هذا هو العظيم والله وطني حرارة حن بدك تبغى الآن والله يوسف وهذا يوتيوب كان صوري يا والله وطبعا عندي بنسال صورة يعني وركد أغا جوالي ده هاي وركد أغا جوالي ده هاي ورمضان لا سين حن السكير صعدي قاعدين أجملوا كنم هو يا تشوفوا والله وين نزل غاغيا يا والله وانت طبيعي انا ورد المن بنتاي وطن اللي يسوي أفضل دينا وشحرم دينا أنا وشحرم تاي هذا دينا أنا وشحرم تاي دينا أنا وشحرم تاي دينا أنا وشحرم كامل لسه كويس قال لا أنت ترتيت ما أنت محسيتي ولا عنا يا هذه يا سيدي وحبها على شيء بس أنا ما عندي أنا بالضبط أنا صبحتي إيه يا سيدي في تجاي كذي وقال لا أنت محل عنا يا من حسيت ولا عنا يا حسيت كذا من أخلا عضلي هذا وأنا حسيت ولا عنا يا قال جوا أنا رأيتي وطني جنوي حلين وانت أنا تلاعين جافنا ما تريده هو تنتظر ما تقوله